السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا قف كستو مقالكيغا نو غارو مغعيغو waa Khatar Xareed Cabdi waxaan ahay business owner ama mulkiile ganacsi waxaan sameeyaa ganacsiga business online ka ah sidoo kalena waxaan ahay mentor diyaar u ah inuu kugu caawiyo wadiiqada dumarleed ganacsigan haddaba waxaan rabaa inaan wax yar ka iraado waxa uu yahay ganacsigan iyo sababtii aan ugu biiray ganacsigan waa ganacsi network marketing ah waa ganacsiga waayadan caalamka haysto ma jirto shahaado shaqo ama mid waxbarasho oo lagaaga baahan yahay balse taa bedelkeeda waxaad heli doontaa training ama tababar aad ku baran doonto habka ama sida loo isticmaalo systemka iyo programyadan isticmaalno iyo sidoo kale training aan kala joogsi lahayn kaasoo aad ku baran doonto qaabkaad u horumarin lahayd ganacsigaada haddaba maxay tahay sababtii aan ganacsigan ugu biiray marka koowaad anigu waxaan ahay hooyo haysato 4 caruur ah oo degan wadanka Norway waqtiyadii wadankan aan imaaday waxaan bilaabay ama aan xoog saaray dhanka waxbarashada sababtoo ah waxaan ahaa generationkii ama dhalinyaradii noloshooda intooda badan ku qaatay dagaaladii sokeeye ee wadanka ka socday ma aanan helin waxbarasho system leh sida daraadeed waxaan ku qasbanaaday inaan fasalka koowaad aan ka soo bilaabo alxamdulillah waxbarashadeedii intii ugu muhiimsanayd waan dhameystay laakiin waxaan ahaa hooyo mas'uuliyad saaran tahay taasoo ay hawsheedu aad iyo aad ay u badnayd hadda caruurtaydii way soo koreen waxay diyaar u yihiin waqtigii tarbiyadooda iyo waxbarashadooda intaba la ilaalin lahaa anigana waxaan diyaar u ahay waqtigii aan shaqo bilaabi lahaa laakiin aad iyo aad bay u adag tahay in adigoo hooyo ah aad caruurtina adigana aad shaqo tagto caruurtina iskool aadaan habeenkii adinkoo daalan aad guriga iskool imaadaan oo adiga caruurtaadiba in waqti isla qaadanin meeshay xaaladooda maraysana aadna waxba kala soconin sidaa daraadeed waxaan raadiyey wax ii saamixi karo inaan caruurteydana haysto aan shaqo ka heli karo taasoo aan waqti badan iga qaadanaynin maalin maalmaha kamid ah ayaan helay ama arkay ad Facebook ah kan aad hadda arkaysaan oo kale waan dhageystay waan akhriyay sidoo kale waan galay gudihii baan u galay inta horta midkaas aan helin waxaa ka jiray kuwa badan oo saas oo kale aan galgalay laakiin waxba ii shaqayn waayay laakiin midkan ayaan gudaha u sii galay warbixintiisii aad baan runtii u macaansaday markaan gudaha galay waan arkay video baa ku jiray videogii aan daawaday noqday runtii midkii aan raadinayay waxaan la xiriiray gabadhii lahayd adkaas marka dibna waxaan sameeyay stepka saddexaad ayaan qaaday kaasoo ah $149 oo meesha ku qoran ayaan bixiyay si aan gudaha u soo arko sababtoo ah waxaan arkay inaan guarantee haysto taasoo aan refaan ku sameyn karo haddii waxaan ay yihiin wax aanan qancinin gudihii ayaan u galay $149 ayaan bixiyay maasha Allah community-gii dadkii meesha ku jiray qaab wixii la qabanayay hawsha siday ahayd coach baan helay gabadhii aan meesheeda ka soo galay mentor bay ii noqotay labadiiba warbixin runtii aan aad iyo aad ugu qanco ayaan ka helay maasha Allah sidaas ayaan ganacsigii ilaa 10 bir camal ayaan fiirinayay oo research badan sameynayay ugu dambeynna waan ku biiray maasha Allah maanta wuxuu ii noqday ganacsiga kaliya ii saamaxay inaan caruurtaydan haysto sidoo kalena aan hawshayda dhan ugu jiro taasoo wax waqti aan iga qaadanaynin waa ganacsi runtii aad iyo aad u faa'iido badan waliba dadka naga Soomaaliyeed dhibaatada ay ku haysato in ayaga iyo caruurtoodu ayna is arag inta qurbaha soo aaday waxa qasaba in ay hooyada iyo aabbaha looga baahan yahay dhaqaalo sidoo kale haddii mid kamid ah uu damco inuu caruurtii dhaqan celiyo waxa qasaba inuu mid kala haro si nolosha cidaas u soo saaro haddaba adigoo heli karo in aad qoyskaadina haysataan labadiinaba dhaqaalo idin anfacana heli karo waxaan dhihi lahaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo diyaar u ah in uu nolosha noocaas ah ee kala fogaanshaha ama ayaga iyo caruurtoodiiba ayna is arkaynin in ay runtii aad u eegaan ganacsiyadan cusub ee waayadan bilaabmay taas aad u sahlayso communication-ka adiga iyo caruurtaada iyo labaanahaba ka dhaxayn kara mid kale waxaanu ognahay waqtiyada maanta
teknolojiyada ay aadka u badatay waxaa adkaaday ama meeshaba ka baxay shaqooyinkii fisikaalka lagu qaban jiray. hawl kaste oo qof bilaadan uu qaban jiray maanta waxaa qabata bir. qof kasta qurbaha joogan wuu arkaa. wax kaste automatic bay noqdeen oo wax lagaaga baahan yahay inaad qabato ma jirto. qof walba oo maanta dhulkan reer galbeedka ku sugan waxa kaliya ee uu ku noolaan karo ama wax uu ka soo saaran karo waa talent asiga uu leeyahay oo uu dadka u soo gudbiyo, inuu product leeyahay, in uu ganacsi business ama online ha noqdo ama traditional ha noqdo inuu sameeyo. laakiin wuu ka baxay meesha wixii xamaali la dhihi jiray. marka qof kasta oo Soomaaliyeed inta aad maalmaha kamida carrada lagu madoobeynin oo hawlihii aad qaban jirtay ayna meesha ka bixin, waxaan leeyahay ganacsigan waa ganacsi mustaqbal leh, waa ganacsi dhaxal ah oo qasameyn karo qof kaste. sida daraadeed meel ka raadso ama meel ka qabso. ma jiro systemka anaga ama programyada aad isticmaali doonto oo training ku qaadan doonto malahan wax lacag oo aad ka bixin doonto ama kiro aad ku qasbanta inaad bixiso ma jirto. waa system adana sidoo kale automatic ah oo 90% asaga ayaa isqabanayo. ma jiro wax manual ah oo qabanayso. 110 ku soo hartayna waxa kuugu filan daqiiqado, xataa kuma dhuminaysid saacad iyo wax la midna. marka qof kaste oo Soomaaliyeed waxaan leeyahay ganacsigan ha laga wardoono, ha la soo eego, ha la soo fiiriyo. $149 oo waliba soo dambari aad ku haysato, aad macnaha iska soo arki karto, aad kadibna lacagtaada dib u soo ceshan karto, wax dhibaato ah ma lahan. marka waxaan leeyahay website-kayga meesha ku qoran gal 149 ka soo bixi, soo arag community-ga soo gal, productiga waxa meesha yaalo, qaabka wax loo qabanayo, sida ay xaaladdu tahay soo arag, kadibna go'aan gaar. adigoo go'aanka marka dambe kula jira. laakiin intaas ayaan idinku boorinayaa. aad iyo aad baadna u mahadsantihiin. waad aragtaa marmaynaya website-kayga khadraturbo.com waaye. wixii kaloo faahfaahin u baahatana Facebook-kayga igala soo xiriir. waxaa ku xiriirsan oo aad arki doontaan taleefankayga kaasoo WhatsApp-kaad iga soo wici kartaan. halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.